والصلاة والسلام على رسول الله. sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa ama ka hortagga musuqmaasuqa maanta waxaynu ka hadlaynaa aan ansixino iyo see ka yeela iyo aqalkii sare sidaa yiri aniga waxaan qabaa waxaas oo dhan fikrad ka bedelan baan qabaa waxay tahay golahan shacabka mas-uuliyiintan halkan fadhiya waxay hadda ka hor ansixiyeen hantida yaa ilaalin kara hanti dhowrkii qaranka ayaa waxa la hoosgeeyey xukuumaddii hanti dhowrkii ilaalin lahaa musuqmaasuqa oo xisaabin lahaa xukuumadda ayaynu hoosgeeyey xukuumaddii ajandaha waa ku jira musuqmaasuqa ilaalintiisa waxaa musiirada koowaad iska leh hanti dhowrka qaranka oo madax bannaan hanti dhowr qaran oo madax bannaan meeshaan kama jiro waxaan kaloo jirin xildhibaanadu kuma dhiiran karaan inay ka hadlaan adinkaa la rabaa musuqmaasuqa inaa ilaalisaan ma ilaalin kartaan kuma dhiiran kartaan waxaad sheegaysaanna waxa weeye waa war aan waxba ka jirin weeye aniga waxaan qabaa ha lagu laabto wixii sharci la hadleeyey hayaaray inaad tidhaahdid kaama mudnaa waxaan kaa rabnaa raaligelin inaad bixisid waa kelmada carabiga keenta raalli ka ahaada laakiin waxaan ku hadlayaa waa xaq hanti dhowrka qaranku ma hoostay karona ku xisaabin lahaa horey baynu dalka ugu hayaarnay horey baynu u rognay wax ma sixi kartaan waa su-aal waxaan